ciidanka dabdamiska Somaliland ayaa maalintii shalay ahayd waxay ka fuliyeen xaafadda Jameeca Weyn ee magaalada Hargeysa howlgal samata bixina oo lagu badbaadinayo haweeney ku dhacday suuli. Hoggaanka caafimaadka ciidanka dabdamiska Somaliland Maxamuud Xaashi Cali ayaa ka warbixiyay qaabka ay howlgalkaasi u fuliyeen ciidamada dabdamisku. howlgalkaasi runtii wuxuu ahaa gabadh ku dhacday ama uu la go'ay suuli oo gudaha ugu jirta suuligaasina uu cabirkiisu ku dhawaa 10 mitir oo hoos u qodnaa. run ahaantii howlgalkaasi oo ujeedada ugu muhiimsan ay ahayd in naf la badbaadiyo. ciidanka dabdamiskana shaqadooda koowaad ay tahay badbaadin nafeed iyo badbaadin maal, waxa loo yaqaano save life and property and humanitarian service. marka run ahaantii howlgalkaasi oo adkaa waanu ku guuleysanay, ilaahayna waa nagu guuleeyay. la qoday waqti hore oo inta badan waxa aragteen suuliyadan dambe oo dhan waa la dhuraa, suuliyaashii hore aan idhaahdee waa la dhuraa. marka suuli waxa inta la dhuray laakiin kafarka sare saaran uu ahaa kafar daalay oo aad iyo aad u daalay. dabadna ay taasi ugu wacnayd in qofka markii uu ku dul istaagay miisaankiisu xamili waayay inuu hayo, dabadna uu gudaha ugu dhacay. okay, taasi markay taa noqotay ee ku dhicista ay tahay dhererkiisa 10 mitir baan ku qiyaasnay oo salaanka lagu isticmaalayay ayuun bay wax yar ka soo hadheen. waanu dhuubnaa runtii. arrinka kale wuxuu ahaa in la isku dayay in marka hore laga soo saaro intaan ciidanka dabdamiska lagala soo xidhiidhin nambarka gurmadka degdega 990. hase yeeshee arrinkaasi uu suuro geli waayey. 8 askari iyo anigoo howlgalka hogaaminayay baa qayb ka ahayn. qaabkii aan riskiga ma badbaado u sameeyno wuxuu ahaa waxaa la adeegsadaa qalab loogu talagalay xilliyada badbaadada. tusaale ahaan hadduu qofku ku jiro biyo, hadduu ku jiro guryo dumay, hadduu ku dhex jiro meel gubanaysa, iyo hadduu ku dhex jiro kiiska shalay tolo dhacay oo ah suuli cabirkiisu 10 mitir ku dhow yahay. marka salaam baan ku dhaadhicinay annagoo ilaalinayna in dhibaatada hore dhacday aanay dhibaato sii raacin oo qofkiina ilaalinayna ka taxadirayna. ayaanu waxaanu sameynay inaanu salaanka ku dhaadhicino 10 mitir ahaa gudaha suuliga. askari ka mid ah ciidanka dabdamiska qaranka caasimadda Hargeysa gaar ahaan oo magaciisa la yiraahdo Maxamed Maxamuud Yuusuf ayaan gudaha u ridnay. isaga ayaa gabadhii soo kiciyay isagoo isticmaalaya farsamadii badbaadada ayaanu dibadda noogu keenay. ciidankuna runtii howlgalkaasi wuxuu ahaa howlgal aad iyo aad u cajaa'ib badan. sidoo kale hoggaanka caafimaadka Maxamuud Xaashi Cali waxa uu baaq u diray bulshada reer Somaliland ee ku nool magaalooyinka Somaliland inaan bulshada ugu diro fariin. maalin walba guryahan waxaan ugu tagnaa carruur yar oo dusha laga xidho, waxaan ugu tagnaa dad waaweyn oo silsilada ku xidhan, waxaan ugu tagnaa dad xanuunsan iyo xagga mentalka ka xanuunsanaya oo halkii si wanaagsan loo daryeeli lahaa isbitaalka waalida loo geyn lahaa proper care iyo proper assessment ku baahnaa la sameyn lahaa runtii aan helin. oo inta guryaha dusha laga xidho dabadna hadduu doono waa qof xisgiisa maqayaysa dabkii abuuraya dadna gubanaya waxay la soo gaarayso. marka bulshada waxaan uga faa'iideysanayaa runtii inay ka feejignaadaan waxyeelada noocaas oo kale iyo in mar wal oo masiiba ay timaado ilaahay bay naguma keenay ay nambarka ciidanka dabdamiska ee lagala soo xidho gurmadka degdega 24 saacadood heeganka ee 990 ama 990 ay hore u soo garaacaan si anaguna gurmadkina uu hore ugu dhaco. Xasan Maal Lidar, telefishinka RTN, magaalada Hargeysa.